marka la rabo in la qariyo data in la qariyo oo encryption lagu sameeyo waxaa la isticmaalaa laba nidaam oo loo yaqaano symmetric encryption iyo asymmetric encryption. Casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay network security qaybta encryptionka waxaynu sharxi doonaa qaabka looga shaqeeyo RSA. So marka koowaad waa inaan fahnaa encryption waxa uu yahay. Marka yacni labadan qof waxay rabaan inay fariin isku diraan. Markay fariin isku dirayaan nidaamka koowaad waa symmetric. Symmetric waxaa loo yaqaanaa labada qof waa inay share gareeyaan one public key for encryption and decryption. So xogta marka ani David uu soo encrypt gareeyo John wuxuu haystaa public key oo la mid ah David so encryption uu sameeyo. So nidaamkan waa weak waaye haddii public keygan qof uu dhexdiina ka helo yani xogtaas secure maaha. Nidaamka labaad waa asymmetric key. Asymmetric key wuxuu ku shaqeeyaa asaga David markuu xogta encrypt gareeyo oo public key ku encrypt gareeyo John wuxuu haystaa his own private key uu haystaa. Private key uusan la wadaagaynin qof kale oo asaga gooni u ah. So mar walba oo labadooda macnaha waxay horta ku wadaagayaan public key oo for encryption ah. Nin kastana wuxuu haystaa his own private key for decryption. Nin kasta yani wuxuu haystaa midka uu ku furi lahaa uu haystaa asaga. David wuxuu haystaa his own public key. John wuxuu haystaa public key. So this public keygan waa same but own private key haystaan. Haddii xogtan dhexda lagu qabsado yani qof ma furi karo. Lagama yaabo qof inuu yani xogtaas uu dhexda ka helo. So maanta marka waxaan rabnaa inaan yani ogaano RSA yani waa nidaam ka mid ah asymmetric key uu ka mid yahay. Asymmetric keygana macnaheedu waxaa waaye public iyo private key uu leeyahay marka. Xogtan waxaan rabnaa inaan kooda hore soo helno private keygeena iyo public keygeena then encryption ku sameyno then decryption ku sameyno. So isla socosho wadaan. Marka koowaad horta waxaa u baahan tahay inaad soo heshid n waxaa lagu helaa b times q oo la mid ah waxa ay haysatid meeshan b daada waa 3 intan waxaa haysataa 11 which equals to 33. So marka labaadna waxaa soo hele phi n waxaa lagu helaa p minus 1 times q minus 1. So waxay la mid noqonaya 3 laga jaray 1 waa 2 11 laga jaray 1 na waa 10 which equals to 20. Marka hadda waxaynu haysanaa oo u taagan public keygeena. Public keygeena waxaan la siiyey 7. Public key marka waxaa lagu helaa n which equals to 7, n waa soo helay ani n-teedu waa 33 yaa leeyahay. Hadda waxaa ii dhiman private key inaan raadiyo. Search for private key. Private key marka waxaa lagu helaa asaga waxaa lagu helaa d times e mod n. Wixii ay haystay e-daada iyo n-taada oo mod la geliyey. Hadda d ani ma aqaano waxaa leeyahay d times meeshan waxaa haystaa 7 mod 20. Waxaa raadinaa tiro markii lagu dhufto 7 isiinaysa yani 20 isoo dhaweynayso. Tiro markaa 7 ku dhufto 20 isoo dhaweynayso ama haraadigeedana uu la mid yahay 1 uu la mid yahay. Haddii tiro 3 lagu dhufto 7 21 uu la mid yahay 21 laga jar 20 waxaa la mid noqonaya 1. Ani waxaa u baahanahay tiro isoo saaraysa 1 meeshan equal 1 laga rabaa. Modkeyga waa inuu 1 la mid noqdaa. Marka waxaa leeyahay meeshan 3 times 7 mod 20 equal 1. So waa helay private keygeyga wuxuu la mid yahay wuxuu la mid yahay 3,33. So hadda decryption aan sameynaa marka. Encryption markaa sameynayo inaa xogta qariya laga rabo waxaa haystaa meeshan m-taan aan iloobay. M-taan waxaa loo yaqaanaa plain text sheyga la rabo in la qariyo. So m-teyda waxay la mid tahay 5 waxaa ku jibaaran waxay la mid tahay 7 mod 20 mod 33. So markii 7 jeer la wada jibaaro waxay la mid noqonaya 78,125. Marka calculator waa geli kartaa stack time mod waxaa dhahdaa 33. Markaas encryption-keena wuxuu la mid noqonaa 20. Qofka waxaa loo diri doonaa 20. So marka decryption inaan ku sameynaa rabnaa. Decryption-ka qaacidada waxaa lagu helaa plain text-keyga oo ah cipher-keygii oo lagu jibaaray decryption keygan
encryption keygan mod 20 mod n oo waxay la mid tahay cipherkan waxay ii soo baxay 20 power 3 mod 33 waxay la mid noqonaya mt-da 5 so haddii 5 kuu soo bixi weyso way kaa qaldan tahay micnaha plain textigaada waa inaad soo heshid micnaha waa qarinay waa soo saarnay so intaas waaye haddii muuqaalkan wax uun kugu soo kordhiyay fadlan janaalka noo subscribe gareey waa ku mahadsantaha daawashadaada